kusoo dhowaada Maine Public News Connect, wararkii toddobaadlaha ah oo idinka imanaya idaacadda dadweynaha Maine oo ku baxaya afafka Isbaanishka, Faransiiska, Boortaqiiska, Soomaaliga iyo af Ingiriiska. bismillaahi raxmaani raxiim. cuntooyinka xalaasha ee dugsiyada, fiisooyinka shaqo xilliyeedka, qorshayaasha dugsiyada Portland iyo maalgelinta federaalka ee kaabayaasha dhaqaale. galab wanaagsan daawadayaal. maanta waa maalin Jimcaha, bisha Mayna ay tahay 17. waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa qodobadii wararka ugu muhiimsanaa toddobaadkan idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Xasan. haddana kusoo dhowaada wararkii oo faahfaahsan. cuntooyinka xalaasha ee dugsiyada. 3 dugsi oo dadweyne oo ku yaala Westbrook, Portland iyo South Portland ayaa waxay bilaabeen inay makhaayadaha dugsiyada ku bixiyaan cunto xalaal ah. hadafka laga leeyahay barnaamijkana waa in ay la kordhiyo ka qayb qaadashada ardayda muslimiinta ee isticmaalka qadada dugsiyada. dad badan oo muslimiin ah oo ku dhaqma iyagu xeerarka cuntada xalaasha ah ayaa waxaa mamnuuc ka inay cunaan cuntooyinka qaarkood, waxayna u baahan yihiin in xoolaha hilibka loo dhaqo loona gowraco si xalaala oo waafaqsan shareecada. qaar ka mid ah ardayda muslimiinta ah wax ka bartaa dugsiga sare ee Westbrook ayaa iyagu waxay sheegeen in cuntada dugsiyada ay wax yarun ka cuni jireen, mararka qaarkoodna iskaba dhaafi jireen maadaama ayna jirin cunto xalaalihi. kadib markii la tijaabiyey baahida 3 dugsi sanadkan, barnaamijka waxa uu hiigsanayaa inuu ku fido dugsiyo kale oo degmooyin badan ku yaala sanadaha soo socda. si haddaba aad u akhrido maqaalkan oo dhammaystiran oo ku qoran luqadaada, fadlan booqo mainpublic.org. fiisooyinka shaqo xilliyeedka. saraakiisha dalxiiska ayaa waxay sheegeen in shaqaalaha gobolka ee kusoo gelaya fiisa xilliyeedka loo yaqaano H2B ay tahay inay gobolka yimaadaan ugu dambeyn maalinta Memorial Day sanad walba, inkastoo ay sheegeen in caqabado ay weli ka jiraan dhinaca wasaaradda amniga gudaha ee dowladda federaalka ah. ururka ganacsatada ee Hospitality Maine ayaa iyagu waxay sheegeen in sanadkii hore la ansixiyey 64,000 oo codsi oo fiisa ah bishii November, taasoo ahayd xilli ka horeysa waqtiyadii hore goortii la ansixin jiray fiisooyinkaas. sababtuna ay tahay bay yidhaahdeen si loogu ogolaado in shirkadaha loo shaqeeyo ay sii qorsheeyaan shaqaalahooda sanadkaas. dib u dhac ku yimid haddaba fiisooyinka sanadkii hore ayaa waxa ay kaliftay in shirkado badan oo ganacsi ay waayaan dad uga shaqeeya shaqadooyinkooda dalxiiska. hodheelo badan, makhaayado iyo ganacsiyo xilliyeed kaleba ayaa iyagu waxay ku tiirsan yihiin shaqaale xilliyeedka kusoo gala fiisada H2B visa loo yaqaano si ay u xoojiyaan shaqaalahooda inta lagu jiro xilliga xagaaga ee dalxiisayaashu badan yihiin. shaqooyinka Maine ay badiyaa mashquulka yihiin. qorshayaasha dugsiyada Portland. saraakiisha dugsiyada Portland ayaa waxa ay ka fiirsanayaan barnaamij lagu mideynayo 3 dugsi sare ee degmada Portland. dhismaha dugsiyada sare ee hadda jira ayaa waxay yihiin kuwo u baahan dayactir iyo hagaajin qiimahoodu ku kici karo ilaa malaayiin dollar. saraakiisha dugsiyada ayaa waxay sheegeen in degmadu ay u diyaarisay miisaaniyad ay ku dayactirayso si ku meel gaara, laakiin ay ka fiirsanayso in ay codsadaan lacagta gobolka si loo dhiso xarun cusub oo mideysa 3 dugsi sare ee Portland oo dhan. qorshahan ayaa waxaa lagu wadaa inuu hirgalo 3 sano ee soo socda. haddii markaas lagu guuleystana la filayo in uu bilowdo sanad dugsiyeedka 2030. maalgelinta federaalka ee kaabayaasha dhaqaale. aqalka cad ee Mareykanka ayaa wuxuu ugu yeeray toddobaadka kaabayaasha dhaqaale oo la doonayo lagu muujiyo mashaariicda dalka oo dhan laga hirgelinayo ee lagu maalgeliyey barnaamijka loo yaqaano xeerka loo yaqaano xeerka horumarinta kaabayaasha dhaqaale ee la ansixiyey 2021, kaasoo isagu bixiyey $100 bilyan oo ka timid maalgelin federaalka ah. haddaba ilaa iyo bishii Abriil, gobolka Maine waxaa soo gaaray 2.4 bilyan oo loogu talagalay in lagu horumariyo tamarta nadiifta ah, gaadiidka iyo weliba mashaariic xagga biyaha ah. lacagtaas haddaba waxaa qayb ka mid ah lagu bixiyey dugsiyada bulshada ee Wells Algonquin, kaasoo isoo qorsheynaya in 11 bas oo ka mid ah 12 bas ee degmada u adeega lagu bedelo gawaari aan iyagu naqaska kaarboonka bixinaynin.
aqalka cad ayaa wuxuu sheegay in Maine sidoo kale ay heshay lacag ka badan 500 milyan oo dollar oo lagu cusboonaysiinaya raadi adeega internetka ee gobolka oo dhan. mashaariicda kale iyaguna la maalgeliyo waxaa ka mid ah kuwa lagu hagaajinayo garoomada diyaaradaha iyo mashaariic dhinaca wadooyinka ah. kaad nagala socoteen waxay ahayd Maine Public News Connect. intaasi iyo sarag dambe waad mahadsantihiin daawadayaal. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waxaan u mahadcelinaynaa saaxiibadayada bulshada ee naga caawiyey soo saarista barnaamijkan. Maine Public News Connect waxaa suurageliyey bankiga Seaport Credit Union, dukaanka Hannaford Supermarkets, IDEX, fiiska guryeynta ee Maine, Coastal Enterprises, Cover Maine, ururka Sam L. Cohen, Ku iyo Patricia Ewan, ururka Maine Health Access, iyo xafiiska adeega bulshada ee Maine. Maine Public News Connect waxaa suurageliyey Patricia Ewan oo ku howlan soo dhoweynta bulshooyinka iyo dhaqamada kala duwan. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. suuqa Hannaford wuxuu u dabaaldegayaa shaqaalahooda iyo macaamiishooda oo ah dad kala duwan iyo dhammaan bulshooyinka. waxaa suuqa ka go'an inay abuuraan goob soo dhoweyn si wada jir ahna waa meel ka sii weyn suuq. si aad wax badan u ogaato booqo hannaford.com. haddii aanu nahay Maine Housing waxaan ogsoonahay in lahaanshaha guryuhu ay yihiin furaha horumarka. barnaamijkayaga iibsiga guriga ugu horeeya waxa uu leeyahay deyn dulsaar hooseeya leh iyo kaalmo lacagta horumariska ah ee guryaha qolalka badan leh. faahfaahin dheeraad ah ka ogow mainehousing.org. haddii lagaa gooyey caymiska caafimaadka ama noloshaada uu ku yimid isbeddel weyn, waxaad heli kartaa kaalmaad iskaga bixiso caymiska caafimaadka adigoo booqanaya coverme.gov. waxyaalo badan ayaa iska beddelay MaineCare. ka warhay si aad caymiskaaga u ilaashato oo warbixintaadii ugu dambeysay ku qor maineconnection.gov.